bismillaahi raxmaani raxiim wacan u wanaagsan daawadayaal waxaa inoo suurto gashay oo hoyga banaadir u suurto gashay inuu xog waraysi la yeesho caaqil xaaji macow oo ka mid ah waxgaradka duubabka beesha mudulood caaqil marka hore kusoo dhowow hoyga banaadir t v waa mahadsantihiin waa ku dhowa sida aan la soconno dhowaanahanba waxaa deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha ka jiray dagaal beeleedyo iyo sidoo kale falal la xiriira aanooyin qabiil oo soo noqnoqday islamarkaana dad fara badan ay isaga dileen qaar ka mid a beelaha walaalaha ah ee wada dega gobolka shabeellaha dhexe haddaba si aan arrimahaasi wax uga ogaano iyo sida ugu habboon ee xalka looga heli karo ayaa waxaan xog waraysi la yeelanay caaqil xaaji macow caaqil bal marka hore waxaad nooga warantaa haddii aad tihiin duubabka beesha mudulood sida aad u aragtaan dagaalada iyo aanooyinka qabiil ee kusoo noqnoqday deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe aad iyo aad aa mahadsantihiin hoyga banaadir t v waxaan rabaa marka hore inaan idinkaaga mahad celiyo inaad isoo booqataan ood waraysi ila yeelataan oo arrimahaas hadda xagga weydiisiin waan idinkaga mahad celinayaa aad iyo aad aa mahadsantihiin intaas kadib haddii aan guda galno barnaamijka aad i weydiisay wax dhibaato ah waayay oo soo noqnoqday ummadda masaakiinta oo deegaanadaas dhibka ka jiro gobolka shabeellada dhexe ku noolna dhib ku ah cid kasta oo waxgarata dhib ku ah duubabka dhib ku ah culammada dhib ku ah cid kasta oo ka naxayso naxaan dhib ku ah marka aad iyo aad anagu xunnahay waxyaabaha ka socdo marka dhibaatooyinkaasi sidee wax looga qaban karaa ma jiraan wacyigelin aad u jeediseen bulshada ama beelaha walaalaha ah ee ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle wallaahi wacyigelinna waa jirtaa baaqal nabadeed waa jiraa aniga hadda kula hadlaya muddo dhowr bilood laga joogo social mediahan ka hadlay baaqaan u dira nabadeed duubab ilamyada iyo odayaal ilamyada iyo siyaasiyiin ilamyadana way ka hadleen arrintaas waxa hadda maanta aan intuu soo fadhiistay oo aan idinkaga mahad celinayo inaan waraysi idin siiyey ka mid tahay waxaan rabaa inaan ugu faa'iidaysto waraysigan iyo imaatinka aad ii timaadeen arrintaas waxaan rabaa inaan baaqal nabadeed halkan ka diro oo aan u diro dadka degan shabeellada dhexe gaar ahaan meelaha hadda dhibka ka taagan yahay dadka kuma seegana dhibka meesha uu ka jiro waa la ogyahay waxaan u diraynaa baaqal nabadeed waxaan leeyahay waxaa laydinka rabaa marka hore inaad ogaatiin waxa aad isu tihiin war waxaad isu tihiin wiil iyo abtigiis wiil iyo adeerkiis wiil ilmo adeera laba ilmo adeera waxaan idinkula talinaynaa oon baaq idinkugu soo jeedinaynaa dhibka inaad iska dhaaftiin dilka inaad iska dhaaftiin naftiinaad dhibteen ummaddii aad dhibteen idinkana waa is dhibteen marka aan leeyahay dadkii aad dhibteen waxaad caadaysateen oo aan wax wanaagsan ahayn nimaan waxa dhacayba war ka hayn intaad wax hallaysiinaa la dilaa waxaa loo dilaa hebel oo maalin hebel wax igu sameeyad wax u tahay asiga kuma dilin wax kaama dhicin dhibaato kuma geysan maxaa u dilay waa dhibtay kan wax dilay asaga waa isdhibay wuxuu isu dhibay hooyana maa hergelina maa geedahu ka cabsaa hooskiisuu ka cabsaa waa isdhibye waxuu kaloo dhibay dadkan shabeellada dhexe noloshooda magaaladay ku xidhan tahay safaray ku xidhan tahay safarkoodii u dhib geliyey nimaan waxba galbsoon dhibka shaqa ku lahayn safarkii u ka cabsaa ma wax lagu yeela u leeyahay sababtaan u leeyahay waa taas ayagana waa isdhibeen ummaddina waa dhibeen laakiin dhowr mar ayaa laysku dayey in arrintan la dhex galo oo wax laga qabto sidaan la socono gogol ayaa la dhigay deegaan ka tirsan degmada warshiiq iyo cadale sidoo kale rag siyaasiyiin oo beesha mudulood ayaa tagtay marka maxaa soo celceliya dagaal beeleedyada iyo aanooyinka qabiil in dadka birmageydada ah la dilo waa su'aal fiican aniga haddii aan fikirkayga ka hadlo daacad ayaa meesha ka maqan wixii daacad laga yahay oo rag u duubto ilaahayna tala saarto go'aan waa lagu guulaystaa dadka isu tegaaye wax isu sheegaayo kulligood ma dhihi karaa aniga
laakiin anigu waxaan aaminsanahay qaar ka mida inaysan daacad ka ahayn oo shaqadaas meesha laga qabtay duubabka warkooda inaysan daacad ka ahayn taasaan aaminsanahay aniga haddii daacad ka ah lahaayeen dhibkan sooma noolayn inta badan beelaha wada dega gobolka Shabeellaha Dhexe laguma aqoonin inay iska dilaan dadka birmalgeydada ah sidoo kale hore waxaa u dhacday in guryo la gubo marka arrimahaas maxaa keenay ayaa isleedahay sidee sax loogu heli karaa arrimahaas waxaa keenay wax aanan wanaagsanayn iyo dad aanan ka fikiraynin fiir dheer aan ka fikiraynin mustaqbalka aan ka fikiraynin oo fudaydna waa ku jira dad fududaaday waaye maaragtay oo guriga uu gubaayo waa guriga walaalkiis waa guriga adeerkiis waa guriga abootadiis waa guriga aayadiis ka u dilaayna waa in adeerkiisanba waa walaalkiis marka xoogaa dadkaas waxaan leeyahay xoogaa aqligooda dib ha ugu noqdaano dib ha u fikiraano colaadda way dhammaanaysaa nabadaa ka dambayn doonto nabaddaas waxaa la rabaa mid lagu caanamaalo allah nooga dhigay in dib looga fikiro oo waxa laysu yahay la xasuustaa ka fiican adduunya aakhira colaad kuma fiicna isdilow kuma fiicna dhibaato kuma fiicna ha laga waantoobo baaqaasaan u diraa ugu dambeyn maxaa tala u soo jeedin lahayd beelaha walaalaha ah ee wada dega deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan Warshiiq iyo Cadale si gaara Warshiiq iyo Cadale waxaan u tala u soo jeedinayaa haddaadna idinkiis xallina oo adaan idinkiis xallina oo dhibka aad ka fikirin aad isku haysiin dhibka dhamaama dawladda waa idin timid duubabka waa idin yimideen intaasoo bilooda la fadhiyey baaqagaa la soo saaray walaxaa lagu heshiiyey wixii lagu heshiiyo waxaa la rabaa idinka inaad fulisiin haddii aad fulina qofka idiin imaanayo waa idiin imaanaa wax fiican oo idiin sheega waan idinka soo tegaa idinkaa meesha ku nool idinkaa xoolihiin isla daaqaan beerihiin isku bood yaalaan dhibka idinka idinku heraa dadka idiin imaanayo oo dawladda leh oo duubab kale oo dhaqan kale wax wanaagsanay idiin sheegayaan waana idinka soo tegaayaan wixii wanaagsanoo la idiin sheego inaad ku dhaqantiin kale idinka rabaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud Cadale ayuu tegey hadalka madaxweynaha waa dikreeto wuxuu ku dhawaaqay qofkii qof disha in la dilo ilaa hadda ma hayno dadkina waa la dhameeyo haya dadkii maalin walba isdilayaan madaxweynihii ku dhawaaqay inuu dikreeto madaxweyne waay tallaabo la qaadayaan looma jeedo meeshaas waxaa ka jirta xogaa dhaliila waxaan kaloo intaas rabaa inaan ku daro raalli ah waa ku soo noqonaysaa aniga waxaan leeyahay hadalka madaxweynaha hala raaco diinta islaamkana raalli ka tahay qof disho in la dilo diinta raalli ka tahay madaxweynihii jamhuuriyaddana dikreeto waay waa ku dhawaaqiyey halkaad i weydiisay meeshaasuu ku jiraa in la dilo qofta marka waxaa hortaagan in dadka falalka dilka geysanaya in la soo qabto ayagana markaas ciqaabtii ay mudnaayeen la marsiyo waa su'aal aad u fiican waxaa hortaagan waa kuu sheegi karaa waxaa hortaagan wax diya la yidhaah diyaa hortaagan diyaa la hortaagan nabadoonnada waxaan leeyahay diyadan aad gurubsaysiin iska dhaafa joojiya marka ninkan wax dilaayo wuxuu aaminsan yahay waxaa rabta dil diyaa la dhiibaa laakiin haddii uu ku fikiro aaminsan yahay naftaadaa la gooyaha ku fududaamaayo inuu wax dilo ku fududaamaa waa hagaag daawadayaal waxaa intaas inoogu dhan xog waraysigii aan la yeelanayay caaqil xaaji macow oo ka mid ah duubabka dhaqanka ee beesha Mudulood oo noo ogolaaday inaan xog waraysi ka yeelano waxa uuna baaq nabadeed u jeediyey beelaha walaalaha ah ee markaasi colaaddu u dhaxayso ee deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe caaqil macow aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waa mahadsantiin waa idinkaga mahad celinaya booqashadiina aad iyo aad u mahadsantiin shaqo wanaagsan